Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Khaalid Cabdi Gaxnuug. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sidii maalintii hore soo ogeyn, waxaynu soo dhiganay statementka loo yaqaano income statement. Income statement formatkiisii sidan ahaa ama qaabkii loo isticmaalayay waynu soo aragnay. Marka caawa waxaan ku xigsiin doonaa statement ku xiga oo loo yaqaano owners equity statement. Sidoo kale waxaa loo yaqaanaa marka uu company-gu yahay partnership ama cooperation, dhowr qof wada leeyihiin ama wax ka badan, retained earnings statement. Imika ma odhanayno inagu because of sole proprietorship ama ownership aynu ka sheekeynayna, waa company-gu qof kaliya leeyahay. Marka company qof kaliya leeyahay ayaa loo diyaarinayaa formatkan ayuu yeelanayaa statementka loo yaqaano ama warqadda loo yaqaano owners equity statement. Warqadani waxay ka hadashaa equity-ga ama capital-ka meeshu inta uu kordhay ama capital-ku inta ugu dambeysay markaa taagan yahay xisaab xidhkaas. Marka capital-ka si loo ogaado, horta warqadda markeeda hore xagga ugu sareysa waxaad kaga qoraysaa name of the company ama magaca company-ga ayaad ku qoraysaa. Saynu hore soo aragnay waraaqii hore kusoo aragnay. Sidoo kale waxaad ku qoraysaa the date baad raacinaysaa. For the November 30 ayaynu inagu maraynay, markaa November 30keedii baynu xidhaynay xisaabtaas. Warqadda magaceeda ayaad ku xigsiinaysaa adigoo hooseysiinaysaa owners equity statement baynu ka wadnaa. Marka warqaddu waxay doontaba ahaan kartaa ama income statement ama balance sheet ama cash flow ama trial balance. Warqadda hadba waxay tahay ku xidhan tahay. Marka imika owners equity statement baynu wadnaa. Owners equity statement baynu bartaa ku qoraynaa, hoostana ka xariiqnaa. After that marka intaas ka soo dhaafno, waxaanu imanaynaa macluumaadkii aan warqadda ku diyaarin lahayn. Marka waa inaynu ku qornaa marka ugu horeysa beginning capital. Beginning capital waxaa looga jeedaa waxa weeyaan waa sanadkii hore ama xisaabtan markii lasoo bilaabay xisaab xidhkii ka horreeyay capital-kii meesha lagu bilaabay. Ma wax capital-ah ayaa hore xisaabtan ka horreeyay oo lasoo dhigay, oo investment-kan ugu dambeeyay ma capital baa ka horreeyay oo xisaab xidhkii hore, ma beginning capital bay meeshu lahayd oo waxa yaalay xisaab xidhka ka hor markii xisaabta la xidhay ee shaqada cusub la bilaabayay. Raasamaal baa meesha yaalay mise ma oolin. Marka anaga company cusub uu ahaa, new company baynu soo bilownay. Maadaama new company soo bilownay, wax xisaab hore oo lasoo xidhay iyo wax yaalay meeshaas may jirin. Capital-keenii caadiga ahaan bilaabayna waa kan 80,000 sida investment-kan samaynay aad ku wada arkayseen, maalgashiga samaynay ayuu ahaa. Markaas 80,000 ayaa loo geynayaa beginning capital haddii uu jiray. Wuxuu ku leeyahay beginning capital inaga waa 0. Add waxaad ku dartaa capital-ka imika. Capital-keena waa 80,000. Add net income. Net income-kan waad u geynaysaa. Net income-ku wuxuu ka soo baxay income statement-kii aynu soo wadnay waa kan. Maadaama net income-kii uu bartan ka soo baxay, waxaad ku xigsiinaysaa owners equity-ga dabeedna ayaad ku daraysaa waagaas. Add ku dar net income. Net income markaad ku darto, total capital-kaas wuxuu isla noqday $81,800,000, $8,800,000. Markaa sidaas ayuu ku soo baxayaa totalka capital-ka uu iska leeyahay ninka loo yaqaano Cumar Auto Service. Company-ga magaciisa waad raacinaysaa. Capital-ka halka company-ga u yaalla waxa weeye ama raasmaalka u yaalla waa $81,800. markaa saas ayaad ku diyaarinaysaa statementka loo yaqaano owners equity statement. Insha Allah casharkeena halkaas ku joojinayna maanta. Waxaan soo dhiganaa halka statement. Waxaan noo haray balance sheet seen xisaabta xidhno. Balance sheet markaan xisaabta xidhno waxa weeyaan reports-kii way soo saarnay. Xisaabtina saas ayay noogu xidhan tahay. Sanadka dambe bilowgiisii iyo diyaargarowgiisii mooyaane xisaabta aynu xidhnay sidaasay ku xidhan tahay. Reports-kii ama information financial reports-kii waynu soo wada saarnay. Macluumaadkii ka soo baxay shaqadeennii soo socotay iyo faa'iidooyinkii ka gaadhnay, haddii faa'iido ka gaadhnay, haddii kalena faa'iido darrada ka gaadhay way muuqanaysaa.
midinada income-kay ka muuqanaysaa, mid anarsigoti ka muuqanaysaa, midna waxay ka muuqanaysaa balance sheet-ka insha allah ina dambeeya haddii la idhaahdo. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.